aniga waxaa la yiraahdaa Maxamed Irbad waxaan ka mid ahay aasaasayaasha IFIA. Xarunta IFIA waxaa la aasaasay sanadkii 2013 sababaha ugu waaweyn ee loo aasaasayna waxay ahayd in lagu dhiirigeliyo akhriska, qoraalka, hidaha, dhaqanka iyo suugaanta. xilligaas oo ka dhalinyaro ahaan aan arkaynay inay baahi weyn ka jirto. marka jaamacadaha ka soo qalin jabinay ama qaarkeen ba xilligaas jaamacadaha dhiganayeen ma jirin maktabado kale meel dhaqanka lagu soo bandhigo, meel doodo cilmiyeysan ay ka dhacaan, akhriska iyo arrimahan oo kale lagu dhiirigeliyo. sababta ugu weyn oo marka nagu kaliftay inaanu arrintaas aasaasna waxay ahayd baahi annagu aanu dareennay. marka la fiiriyo dhaqanka muhiimad weyn annaga noo leedahay waana sababta aan u aasaasnay xarunta IFIA. ummadina waxa ay ku taagan tahay ama ahmiyadda ugu weyn ayada dad ahaan lagu garanayo ama ummad ahaan lagu garanayo dhaqankeedii si ugu xooganaato. dhaqanka in la dhiirigeliyo la soo nooleeyana waxay ku xiran tahay sababo badan. in kow afka la xoojiyo, in maxay ahayd tooyay barnaamijyo dhaqan la qabto, barnaamijyo hal abuur la qabto, sidoo kale barnaamijyo farshaxanka ama maxay ahayd tooyay aan xarunta ku qabanno, barnaamijyada suugaanta, barnaamijyo madada ama maaweelo caruur ama hal abuurka caruurta maaragtay si uu uga hadlay inaan ku qabanno xarunta dhexdeeda. marka arrimahaas oo dhan oo la isku soo koobay si uun waxay noo tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay dhaqanku. barnaamijka tartan sheeko waxaan ugu dhaliyay ugu horreyn sanadkii 2016 waxaan bilownay inaanu barnaamij la yiraahdo akhris wadareed oo xarunta ka dhici jiray si isbuuclo ah. dadkii ku xirnaa markii aanu bilaabinay barnaamijka aad u yaraayeen, laakiin waqti kadib aad ay u soo bateen. dadka ku soo xirmay ama isbuuci ama bishii ilaa heer ay gaareen in isbuuci dadka meesha ku xiran ay gaaraan 200 iyo ka badanba. markaanu aragnay taas ayaa waxay nagu kaliftay inaanu si guud Soomaaliya si aanu ku gaarno inay jiraan dadka wax aan ku dhiirigelin karno, ayagana ku qasbi kara inay wax qoraan, hadhowna ay faa'iido ku qabaan. taas horta gundhig u ahayd inaanu ka fikirno barnaamijkan tartan sheeko. kadibna waxaa dhacday in Soomaaliya dhan ilaa 73 sheeko ay na soo gaarto intii 15 cishay oo tartanka socday. markii la fiiriyo wiil ama gabadh ayaga filkooda ah oo abaalmarin fiican ku helaya wixii ay qoreen, runtii waxa imaanaya masayr ama qofkii wuxuu si uun u dareemaya inuu isaguna bal ficilkan qaado. ujeedada ugu dambaysa aan ka leenahay waxay tahay marka intaas la iskaga daysado, waxa wanaagsan la iskaga daysado. caqabado badan aan la kulnay runtii. koow waxaan ka fikiraynay yaa ka qayb qaadan doona barnaamijka, sheekooyinka ay raadinaysaan talow ma heli doontaan, garsoorka oo kale yaa xukminta maaragtay tartan sheeko yaa samayn doona. sababtoo dad badan markaa wax ka qaadid xukmintooda ama markii adiga xukun lagu dhiibo runtii waa mas'uuliyad aad u culus. sidoo kale dhaqaalaha abaalmarinta iyo xafladda iyo barnaamijka oo dhan ayadana caqabad kale ahayd oo dhacayso iyo meesha. caqabadaha kale oo na soo wajahay waxay ahayd si guud isku dubaridka hawsha. waa markii noogu horreysay oo aanu samayno barnaamijka tartan sheeko. in barnaamijka wax markay kugu horreyso la samaynayana runtii caqabado badan oo inaad wixii ka cabsatid, qaabkay u socdaan, khibrad badan aan loo lahayn. intaasba waxay ahaayeen runtii caqabado badan oo aan dareemaynay, laakiin alxamdulillah hadda waan ka soo gudubnay, waxaanu joognaa meesha ugu dambeysay. mudanayaal marwooyin ku soo dhawaada madasha abaalmarinta tartan sheeko oo ay qabanayso xarunta IFIA. qof kasta oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo miyi ku soo koray, anigu 15 sano ku soo gaaray, oo miyi ku soo koray, wuxuu xusuusan yahay oo magaalada la imaanaya sheeko caridooyinkii loogu sheekeyn jiray oo markii hore iska qosol iyo kaftan iyo iska, laakiin marka dambe nolosha aad weynaato macna badan bixinaya, waxyaabo badan ku baraya. maamaayihii waxaad soo baranaysaa carab jalqintii, waxyaabaha carabka laga ilaalinayo ilmaha lagu barahayo, heesihii, cayaarihii oo kala duwan oo habeenkii la cayaarayo lagu soo jeedayo lagu fiidayo lagu barbaarayo. marka nolol barbaarinah oo cayaara waxaan ka wadaa sheekooyinku waa qayb dhisaysa qofka. waayahay guulaystaha saddexaad oo inala jooga ayaan rabaa markan inaan halkan ka waco. waa Sidiiq Axmed Ciise. Sidiiq waxa uu ku guulaystay sheekadii qoyskii Fafara. aniga tartanka waxaan ka galay kaalinta saddexaad. aadaan ugu faraxsanahay inaan kaalinta saddexaad noqdo. marnaba ma filayn inaan ku soo bixi doono tartankan, maxaa yeelay waxaan islahaa dad kaa waaya aragsan hortaa ku jiray qoraalka
ayaa tartankan kula jira marka waxay ahayd wax lama filaan ah oo aan ku soo baxay waana ku faraxsanahay in tartanka sheeko ee 2018 ee xarunta ifiya aan ka mid noqon guuleystayaasha wallaahi waxaan rajeynayaa wax qorista inaan ka gaaro meel fiican oo yani weliba waxaan rabaa qoraal ama buug aan qoray inuu noqdo yani mid ka mid ah buugaagta caalamka la akhristo. waayahay guuleystaha labaad cabdiraxmaan cabdullaahi xasan isna waxaa guddoomaya maxamed cabdirasaaq faarax irbad ayaa isna guddoomaya. أنا وحيابه عاوي وحاكم إذا معلم كدوسي وهوسة مادة في الصومالي جاي سوقان تيجي فكنا ندري شري مركز عرسيو يو شيكوين ساس كلا كوكوان أو كم يدها 10 والله لسه هنا ندري شري مركا وقت جالس دوسي وهوسة كلاسكي لحد دبات ده على حسين تصدن marka marba sidii uu noogu diray adigu macalinkaas ay igu dhiirigeliyay sheekadan oo ahayd mid aan muddo hore qoray oo aan faafin marka anigana way ila wanaagsaneyd inaan yani sidii hore ka duwan inaan u faafiyo marka waxaan sameeyay inaan tartankaas sidaas aan soo xareeyay. tartan sheeko waxaa ka soo qayb galay 397 tartamayaal. guuleystaha koowaad nasro cali nuux nasro maadaama ay naga maqan tahay waxaa abaalmarinta u guddoomiyay oo ay u kiilatay fahiimo kayse awseyd. fahiimo ayaan ka codsanaynaa inay masraxa timaado si ay u guddoonto abaalmarinta guuleystaha koowaad nasra. waxaan ka baxay jaamacadda Hargeysa 2015 nutrition waxaan la shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka aan kala shaqeeyaa arrimaha nutrition iyo waxaas horta run ahaantii de sheekada waqti baan geliyay laakiin anigu markaas markii ugu horeysay bay ahayd ma filayn inay de sheekadaydu soo bixi doonto halkaas soo gaari doonto waanan ku faraxsanahay inaan noqdo guuleystayaasha tartan sheeko sidoo kale waxaan hambalyo fara badan u soo jeedinayaa kooxda ifiye oo iyagu barnaamijkan sameeyay oo macnihii dadkiina kor ugu soo qaaday in macnihii ay xirfadooda wax qoris tijaabiyaan sidoo kale bulshadiina u soo bandhigay oo soo gaarsiiyay qoritaanka iyo dadkaas sheekooyinkii qoreen la soo wadaagay oo yacni shucuurtii dadka ku jirtay gaarsiiyay bulshada ayaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa. ururka ifiye ama xarunta ifiye ay noogu qabatay xaflad aad qiimo u leh taasoo lagu tartansiinayay sheekooyinka iyo ma arkaysa hal abuurka dhaqanka iyo Soomaalida la xiriirta taasina waa arrin runtii aad loogu farxay. tartan sheeko sida markii aan bilaabaynaba aan ku hami weynayn haddana aan ku rajo weynaa waxay tahay inuu sanad la noqdo insha Allah sanadka dambe 2019 inaanu qabanno. marka ifiye waxay noqonaysaa xarun joogto ah oo adinka oo waaweyn oo ubadkiina ay ka faa'iidi doonaan sida xarumaha la midka ah ee adduunyada ka samaysan ay u yihiin xarun runtii aad iyo aad u ballaaran. barnaamijka noocan oo kale ah faa'iidooyinka uu inoo leeyahay waxaa ka mid ah in ay dhiirigelin u tahay qoraaga Soomaaliyeed oo dhalinyarta rabtay inay wax qoraan ay isku dayi doonaan inay tartanka noocan oo kale ah inay ka qayb qaataan. ugu horreyn horta waxaan u hambaleynayaa guuleystayaasha kaalinta koowaad labaad iyo saddexaad si guudna waxaan ugu hambaleynayaa dhammaan dadka ka qayb qaatay runtii in la qabto tartankani wuxuu lahaa muhiimad gaar ah wuxuu ahaa barnaamij dhiirigelina oo lagu dhiirigelinayo inta hadda isticmaasha qalinka qoraalka awoodiisa inta hadda aan isticmaalinna ay u noqoto dhiirigelin inay ayaguna qaataan qalinka si ay wax u qoraan uguna mid noqdaan dadka berita ku guuleysanaya abaalmarinaha fiican ee bixinaysa xarunta akhriska qoraalka iyo dhaqanka suugaanta ee ifiye.